السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا كحرا جنالكا وحان إذن ليهي كسو دواغا muuqaalkan oo aan kaga hadlayo taariikh nololeedkii Ibn Battuta oo ahaa dhulmareen iyo badmareenba. Waxa uu ka mid ahaa raggii ugu caansanaa ee waqtigii dahabiga ahaa ee ummadda Islaamka soo maray. Waxa uu ku takhasusay cilmiga juqraafiga, ahaana caalim diineed. Waxa kale uu yaqaanay cilmiga xidigiska oo waqtigiisii looga dambeyn jiray. Daawade, haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato channelka, like saar, subscribe-na ha ka hilmaamin si aad ula socotid muuqaal walba oo aan soo geliyo channelka. waad mahadsan tahay. Magaciisu waa Shamsuddin Abu Cabdillaahi Muhammad bin Cabdillaahi bin Ibrahim bin Muhammad bin Yuusuf al-Waddi al-Danji. Waxa uu ku dhashay magaalada Danji ee ku taalla waddanka Morocco sanadu markay ahayd 1304 ee miilaadiga. Waxa uu ahaa nin aad u safar badan oo wadamo badan ku tegay safar. 30 sano oo ka mid ah cimrigiisa waxa uu ku qaatay safar, iyadoo adkayd in la safro waqtigaas, iyadoo aysan jirin wax baabuur ah ama diyaarad ah. Ayuu Ibn Battuta dhulkii uu tegay oo dhan waxa uu ku wada maray faras, waqtigaas oo farasku ahaa gaadiidkii ugu dheerayn jiray. Waxa uu safar ku maray dhulka marka loo qaybiyo 4 meelood 3 meelood oo ka mid ah. Waxa uu Ibn Battuta ahaa dhulmareen iyo badmareenba. Safarkiisii ugu horeysay waxa uu ka bilaabay magaaladii ku dhashay oo Danji, waxaana uu ku maray safar Jazaa'ir oo dhan. Waxa uu ka gudbay Badda Cas, waxa uu u jihaystay ilaa iyo dhanka Madiina. Waxa uu uga gudbay Maka si uu ugu guto waajibaadka Alle. Markii uu dhammaystay waajibaadka Alle waxa uu sii watay safarkiisii. sanadu markay ahayd 1321 ilaa intii u dhaxaysay 1357. waxa uu safar ku maray wadamo badan oo kala ah Ciraaq, Turkiga, Iiraan, Syria, Ruushka, Hindiya ilaa uu gaadhay dalka Afghanistan. Taariikhyahanadu waxay sheegeen inuu halkaas ku nagaaday muddo gaadhaysa 2 sannadood. Markii uu ka tegay dhulka waxa uu u ambabaxay safarkiisii ilaa iyo China. Waqtigii uu ka soo laabtay waxa uu safar ku tegay Ibn Battuta wadamo badan oo ay ka mid yihiin Geeska Afrika, waxaana wadamadaas ka mid ahaa waddanka Soomaaliya oo uu safar ku yimid magaalooyinka kala ah magaalada Muqdisho, magaalada Saylac iyo magaalada Berbera. Ibn Battuta waqtigii uu safarka ku jiray waxa uu soo arkay ummad diin iyo habdhaqan aad iyo aad u kala duwan. Dadka Soomaalida waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dad aad u jecel diintooda kuna wanaagsan dhanka martisoorka. Waxa uu wax ka qoray wadamadii uu soo maray oo dhan. buugaagtii uu ka qorayna waxa ugu caansan buugga lagu magacaabo Rihlatu Ibn Battuta. Eebba ha u naxariistee wuxuu geeriyooday sanadii 1369 ee miilaadiga, waxaana uu ku geeriyooday magaaladii uu ku barbaaray ee Danji ee dalka Morocco. Insha Allah waa inoo iyo muuqaalka xiga. في ربوع بياني وأتى القاصد بأروع الألحان.